السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه آد بقى السلام يا سوري ما أنت وحواي هيدفون في سبيكر ما استعماله وما بيعدكوا حاليا بينو أنا وفينا على كل حواي السلام يا إن شاء الله لما أنتين دا كومنتي صبح أو تدرس كل واحد سود وين إن شاء الله مركا عاو عشر كستيل برون نام كيان ولي كجرنا هدي إلى هي هذا مركا عاو بار 3 ولي بقيبتان حاومالينا قيب كدر دون هدي إلى هذا so maxay raada qaybta qaadanin waa possessive pronoun ku badan yahay aad ayuu badan yahay marka waxaan isku dayaa marba mid inaan ka qaadan insha Allah marka possessive waa lahaansho insha Allah marka I waxay noqotaa mine waa inuu akhrinaa I mine you yours he his she hers we ours they theirs you yours. This book is mine. This book is mine. This is mine. This is mine. Mine is green. This book is hers. This book is hers. This is hers. This is hers. Hers is black. Hers is black. This house is his. This house is his. This is his. This is his. His is bigger. His is bigger. This book is yours. This book is yours. This is yours. This is yours. Yours is smaller. Yours is smaller. These cars are theirs. These cars are theirs. These are theirs. These are theirs. Theirs are yellow. Theirs are yellow. Is this your book? Is this your book? Yes. It is mine. Yes, it is mine. Yes, it is mine. walaalahay labadii habeen tagay wali pronouns aan ku dhex jirnaa this part 3 qayb saddexaad insha Allah marka possessive pronouns waxa way lahaansho magacuyaal pronouns waa magacuyaal possessive na waxa weeyaan lahaansho marka aynu isticmaalayno insha Allah qaybtani aan baranayno I waxay noqotaa mine you yours he his she hers we ours they theirs you yours marka youda hadday kali tahay iyo hadday jamac tahay waxa weey waa isku mid insha Allah ma garateen marka saad u jeedaan s-nakum s maxaa yiraahdaa apostrophe-na hakadna kuma jiro mujada hers hakad ma laha yours hakad ma laha marka ha ku darin qaybta markaad process pronoun isticmaalaysid hakad ma laha sababtoo ah waxa weeyaan erayadan waxay qaataan booska magaca ayuu galaa ma garatay laakiin hadduu booska adjective oo geli lahaa maarta ama lahaa possessive-ka kale possession kale then wuxuu apostrophe geli lahaa marka booska magac hadduu qaadanayo apostrophe lama geliyo insha Allah bal mar kale ayaan rabaa idin dhigo qaabta la ka dacaawo idin ma dhigay qaybtaas insha Allah mar kale ayaan fahamsiinaya just caaw guud ahaan baa rabaa inaan fahamsatay la yiraahdo marka this book is mine bookani is mine aniga iskale this book is mine bookan aniga iskale marka sida aad dareemaysaan mujada is mine muxuu galay booska magac ayuu galaa that means magac kuma daraysid magac ma raacinaysid kani waa kaygi waa saas kul this bookan waa kaygi waa saas aad leedahay this bookan is wuxuu yahay mine aniga iskale means waa kaygi waxaad kaloo dhihi kartaa this is mine kani waa kaygi adoo aadan this book dhihina waxaad dhihi kartaa kani waa kaygi waa dhihi kartaa hadda halkan aan fiirin mine is green kayga waa cagaar intaad dhihi leed buugayga waa cagaar waxaa leedahay kayga waa cagaar intaa dhile buugayga waa cagaar ma dhehaysid
ma dhaysa haddaad buuggayga waa aad ku soo dartid wuxuu isu bedelaya adjective possessive adjective isu bedelaya sababto adjective wuxuu magac ka sheegaa nounka mafahamta marka waxa kan wuxuu qaadanayaa booska magac ayuu booska nounka magac ayuu qaadanaya marka so sidaa awood ay waxaad ku ogaan inuu yahay possessive pronoun haddii kale haddaad magac raacisid oo aad tiraahdo my book haddana kan uu isbedelay wuxuu isu bedelay my uu noqonaya my not mine my iyo mine way kala duwan this is mine waxaa loo dhiga my so marka wuu isbedelaya marka insha allah markaad kuwan la isticmaalayo noun ma raacin sababta magacan booska magaca ayay galaan insha allah marka mine is green means buuggayga waa cagaar intaad dhihi lahayd buuggayga waxaad leedahay kaygu waa cagaar magartay this book is hers buuggan ayada ayaa iskale this book is hers buuggan ayada ayaa iskale waxaa kaloo dhihi kartaa this is hers kani ayadaa iskale kani waa keedii af Soomaali wuxuu noqonayaa kani waa keedii intaad dhihi lahayd buuggani aad dhihi lahayd waxaad dhihi kartaa this is hers ayadaa iskale hers muxuu u taagan yahay buuggeedii iyada leedahay ayuu u taagan yahay magaca booskiisa ayaa gelin this is hers intaad dhihi lahayd kani waa buuggeedii intaad dhihi lahayd waxaad leedahay this is hers kani waa keedii waa maxay buuggeedii marka waa saa magaca booskiisa ayaa la geliyaa hers is black keedii waa madow yahay keedii waa kee buuggeedii ma lagu dhihin buuggeedii waa madow yahay maxaa lagu dhahay keedii waa madow yahay booska hers aad ka dhihileed oo macnaha booska aad buugga ka dhihileed hers aad gelisa keedii marka waa kaa wuxuu qaataa magaca booskiisa ayuu marbar geliya ama inaad horey ka geli ama gadaal ka geli always this possessive kan oo pronoun magaca booskiisa ayaad gelinaysaa saas ayaad ku ogaanaysaa insha allah halkan this house gurigan is his gurigan isagaa ayaa iskale this house gurigan is his asagaa iskale okay this is his kani isagaa iskale intaad dhihi lahayd gurigan maxaa tiri this is his kani asaga ayaa iskale this is his kani waa kiisii waa maxay gurigiisii marka waa saas ma garatay so booski muxuu galay magaca booski intaad dhihi lahayd kani waa gurigiisii maxaa tiri this is his kani isagaa iskale kani waa kiisii kee gurigiisii his house is bigger gurigiisii macnaha waxuu leeyahay mogta kiisa wuu weyn yahay daamin kee guriga his house inta la dhihi lahaa waxaa lagu his is bigger means gurigiisa wuu weyn yahay waa kiisa ayaa weyn waa means gurigiisa ayaa weyn waa saa maxaa booskiisa muxuu noqday kiisa maxaa laga hadlayaa gurigiisa laga hadlaya that's why his maxay qaatay booska magaca intaad leedahay gurigiisa waxaad leedahay kiisa waa saa marka xataa aad leedahay magac kuma xijinaysinta magac maarta wax magac ma ku xiga markaad his ar magac ma ku xiga maya halkan magac ma ku xiga maya daasa kushi inuu yahay possessive pronoun haddaad laakiin magac halkan ku aragtid wuxuu noqonayaa possessive adjective isu bedelaya insha allah adjective isku bedelaya marka laakiin erayada qaarkood way kala duwan yihiin insha allah okay this book is yours kani waa buuggaan this book buuggaan is yours waa kaagii this book buuggaan is yours waa kaagii buuggani waa kaagii hadda maxaa kaloo dhihi karaa this is yours kani waa kaagii means this is yours kani waa kaagii means buuggaani waa kaagii waa saa this is yours buuggaani waa kaagii yours is smaller buuggaaga is smaller that means buuggaaga wuu yar yahay yours is smaller that means buuggaaga wuu yar yahay ma garatay waa saa so yours wuxuu u taagan yahay buugga insha allah these cars mar fiiriya hadda halahan dhan waxaan soo qaadanayna wax singular oo ah keli ah hadda maxaan ku tusiyaa jamac baan ku tusiyaa these cars gaariyadaani are theirs waa kuwoodii mujada these markaa tiri ma verbigu isbedelaya these cars muxuu ahaa this car wuxuu ahaa this house this book halkan this markaa ka dhigtid eriga carsna jamcu noqonayaa halkanna jamcu noqon laakiin maxaa idhaha possessiveka isma bedelo possessiveka weligiis same u taagnaanaya
isma bedelayo ma garata sababta hista her yours isma bedelaan jamac haddaa ka dhigto iyo bulk iyo maxaa allah soomaha kisi dhaban iyo waxbaan kala dhihi jirna kowle markuu jamc yahay iyo maxaa idhahdaa markuu wadar yahay ama waaxid yahay waxa weye isku si ayuu ahaanaya isma bedelo possessive pronoun isma bedelo so these cars gaariyadan ama baabuurtan are theirs waa kuwoodii these are theirs kuwani waa kuwoodii these kuwani are waxay yihiin theirs kuwoodii ayay yihiin theirs are yellow theirs wuxuu taagan kuwoodii waa jaalle kuwoodu maxaa laga hadlayaa buugti baa laga hadlaya sorry baabuurtooda laga hadlaya baabuurtoodii waa jaalo is this your book yes it is mine waxa weeyaan is this your book kani buuggaaga miya yes it is mine ha waa kaygi intaa dhihi lahaa ha kani buuggayga waa intaa dhihi lahayd yes it is my book intaa dhihi maxaa tiri it is mine waa kaygi laakiin haddaa ku jawaabto yes it is my book wuxuu noqonayaa possessive adjective so halkan waxaan rabnaa possessive pronoun marka waxaad leedahay it is mine waa kaygi marka insha allah caawa halkan waxaan kaa barayaa possessive pronoun inuu galo meesha magaca booskiisa ayuu qaadanayaa magacna lama raaciyo markuu keli yahay iyo markuu jamac yahayna isma bedelo insha allah marka intaasaan ku barayaa insha allah khayr bayn baa idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu